السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal haddii uu qof kugu caasiyo, haddii aad aragtid qof sigaar cabaayo, haddii aad aragtid qof khamro cabaayo, haddii aad aragtid qof qaad cunaayo, haddii aad aragtid qof dambi ku jiro xumaan iyo macaasi, micnaheedu ma waxay tahay qofkaas inuu gaal noqday? waa maya. micnaheedu ma waxay tahay qofkaas inuu cadaab galaayo? waa maya. haana ma dhihi kartid, mayna ma dhihi kartid, lianna qofka keliya uu xukumi karo qofkaas waa allah subxaanahu watacaala. waxaan ku leeyahay adigan walaalkii ah walaashiina ah, qofkan war uma haysid asaga iyo rabbigiisa calaaqad u dhaxayso. waxaa laga yaabaa inuu yahay qof qalbigiisa nadiif yahay, waxaa laga yaabaa inuu yahay qof allah subxaanahu watacaala mar waliba aad uga cabsado, waxaa laga yaabaa inuu mar waliba uu sadaqo ilaahi subxaanahu watacaala dartiisa u bixiyo, waxaa laga yaabaa cibaadooyin yar yar ah inay u qarsoon yihiin, laakiin markii bannaanka loo soo baxo xumaantadii iyo macaasidii iyo dunuubtii bannaanka taalay ee duufsanayso. haddaba ha ku degdegin qofka intaadan xukminin ka hor, ma ogid calaaqada asiga rabbigiisa kala dhexayso. waqtigii reer bani israa'iil ayaa waxaa dhacday ninna wuxuu ahaa caabid, ninna wuxuu ahaa nin dunuub iyo macaasi ku jirto, laakiin laba walaalo ayaa ahayn. maalin waliba wuxuu ku arkay xumaanta isagoo ku jiro walaalkiisa, wuxuu dhahay iska dhaaf. maalinta dambe wuxuu ku yidhi war waxaan iska dhaaf, ilaahay kuma naxariista, ilaahay janno kuma geeyey. maxaa jannadiisa geeyey? maxaa dambi dhaafkiisa geeyey? allah subxaanahu watacaala ayaa qofkan untay, allah ayaana qofkan iska leh. markaasu wuxuu yidhi ninkii war i dhaaf, aniga rabbigayga maxaa kaa galay, dhexdeena maxaa usoo galaysaa? khalaas watrugna washaanana, aniga rabbiga naga dhex bax, hanaga dhex hadlin, saddexiyo hanagu noqonin, watrugna nadaa. allah subxaana watacaala ayaa labadooda intuu naftooda soo qaaday, labadoodaba ilahi subxana wataala soo ristaajiyey. ilaahi subxaana watacaala kii ku caasinaya waxuu yidhi bax tag oo jannada gal, raxmadeeda jannada ku aad. kii kalete oo mujtahidka ahaa cibaadaysana ilahi subxana watacaala caabudan wuxuu dhahay bax cadaabta gal. adiga aniga ii goonaysid inaan qof cadaabo, mise adiga ii goonaysid inaan qof jannada geeyo, mise inaan u dambi dhaafo? go-aankaana iska leh, ha soo fargashanin go-aankayga, adigaba go-aankaaga ma soo fargashtay. cibaad allah, qofka haddaa aragtay inuu xumaan ku jiro, nabiga calayhi salaatu wasalaam waxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadihi fain lam yastatic fa bilisaanihi fain lam yastatic fa biqalbihi wadalika adcafu l-iimaan. marka lagu leeyahay biyadih maaha inaad seef qaadatid, maaha inaad caytantid, waxaa lagu leeyahay gacanta markaad ugu qabanaysid waa inaad qofkan si maskaxiyan, caqliyan, diiniyan, adabiyan, akhlaaqiyan ah inaad xumaantada wasu dhex saartid, adigoo gacantaada afcaal xun iyo dagaal iyo qeyli iyo buuq u isticmaali karin. waa inaad dhanka wanaagsan u isticmaashaa. amaa lisaanka waa inaad ayadoo sidoo kaleeto dhan aadaabaysan, akhlaaqiyaysan oo habaysan, cilmiyaysan waa inaad qofka ugu waanisaa. amaa dhanka qalbigana waa inaad uga dacaysaa. markii lagu leeyahay fa biqalbihi, yani ma inaad qalbiga haddii aad ka karaahiyeysato inaad aad waxaan maxay tahay, laa, ilaah subxaana watacaala ilaah waxaan kasoo hanuun qofka walaalkii ah, waxaan kasoo hanuun ee ka saar. asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu.